Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada qaybta afraad ee macluumaadka ku saabsan afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Qaybta saddexaad waxay inoo joogtaa daqiiqado badan markii dhammaan dadka reer Turkiga oo kala diin iyo aragtiyo duwana ay xisbi iyo shacab ay u midoobeen sidii dalkooda ay u difaaci lahaayeen. Qaybta afraad waxay ku bilaabanaysaa sidan: mar haddii aynu soo qaadanay in madaxweyne Erdogan oo fariintiisii ugu horeysay intii uu socday iskudayga afgambiga uu soo mariyay qadka telefoonka gaar ahaana aaladda FaceTime ayaa waxa uu ku isticmaalaya telefoonka nooca Apple-ka loo yaqaano, waxaana markiiba isweydiinta ay noqonaysaa sidee ayuu ku yimid isticmaalka qadkaas. waxaa sidoo kale la isweydiinayaa yaa fikirkaasi ku dhaliyay madaxweyne Erdogan sida muuqata saacadaas isagoo aan haysan qad kale oo fariintiisa uu ku gudbin karayay. qof kasta oo habeenkaasi daawaday ama goobjoog u ahaa iskudayga afgambiga waxa uu xasuusan yahay wejiga gabadha warfidiyeenka ah ee caanka ku noqotay dhacdadaasi. sidaasi awgeedna waxaa muhiim ah inaynu waqti siino barashada gabadhan iyo sida uu ku yimid fikirka ahaa in madaxweynuhu uu ereygiisii fashilmay ee afgambiga dadweynaha uu soo marayo qadka FaceTime ee telefoonka gacanta. bishii Sebtembar sanadkii 1974 ayaa ay ku dhalatay magaalada caasimadda ee Ankara. waxay ka dhalatay qoys Muslim Sunni ah. waxbarashadeeda ilaa heerka koowaad ee jaamacadda waxa ay jaamacadda Ankara kaga qaadatay shahaadada koowaad ee jaamacadda oo ah cilmiga saxaafadda iyo warbaahinta, gaar ahaan qaybta idaacadda iyo telefishinka. Hande Firad oo ay saaxiibadeed ku tilmaameen aqoon-yahanad howlkar ahi, afkeeda ka sokow waxay ku hadashaa luqadda Faransiiska. waxa ay balwad u leedahay akhrinta buugaagta iyo sawir gacmeedka farshaxanka. Hande Firad oo ah hooyo dhashay gabar 11 sano jir ahi waxay ka soo shaqaysay telefishinno kala duwan oo dalka Turkiga ka dhisan, kuwaas oo uu ugu dambeeyay telefishinka ee hadda ay ka shaqaysay ee CNN Turkey oo ah laan telefishinka Mareykanka ee CNN uu ku leeyahay dalka Turkiga. inkastoo Hande Firad muddo 17 sano ay kusoo dhex jirtay warbaahinta, dhacdooyin badan, warbixino iyo warar kala duwanna ay ka samaysay ama ay soo jeedisay warar laga sameeyay, haddana wejigeeda iyo magaceedu waxaa mar kaliya adduunka oo dhan ay caan ay ka noqdeen Jimcihii 15 Juulaay sanadkii 2006 markii shaashada teleefankeeda ee gacanta uu ka soo muuqday madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. muuqaalkani sababta uu xiiso gaar ah u yeeshay waxay ahayd isaga oo ahaa muuqaalkii ugu horeeyay ee madaxweynaha laga arkay intii uu socday iskudaygii afgambiga. waxa uu ku soo beegmay xilli qof kasta oo dhacdadan la socday gudaha iyo dibaddaba uu xiiseynayay inuu ogaado halka uu madaxweyne Erdogan uu ku dambeeyay iyo ereyga dhacdadan uu ka oranayo. Erdogan oo ka dhex muuqda shaashada teleefanka Handa, fariintii badbaadisayna u jeediyay shacabka, ayaa daqiiqada gudahood waxa ay soo xigteen dhammaan telefishinada caanka ee dalka Turkiga iyo kuwa adduun weynaha. waxaana uu noqday warkii soo afjaray shakigii ku xirnaa badqabka madaxweyne Erdogan, isla markaana taageerayaashiisii iyo dadyoogii u warwarsanaa dimuqraadiyadda dalka Turkiga ku dhiirigeliyay inay guryaha ay ka soo baxaan oo ay isku dayaan in nidaamkooda dowladnimo ay ka difaacaan askartooda oo damaca uu ka galay kursiga, sharaftuna ay tahay in codka dadweynaha ay ku yimaadaan. gabadhan oo mar dambe telefishinka Al Jazeera uu ka wareystay sida dareenkeedu uu ahaa daqiiqadahaas, waxa ay sheegtay inay ahaayeen daqiiqado cabsi badan oo ay u warwarsaneed dimuqraadiyadda dalkeeda uu waayi doono. waxa aanay ku celcelisay inaanay aaminsaneyn in ay noolaan karto nolol xor ah dimuqraadiyad la'aanteed. fiidnimadii Jimce ee 15 Juulaay 2016 warar yaab leh ayaa ka soo dhacay xafiiska wararka. sidaa ayay tiri Handa iyada oo sheegaysa waxa uu warkaasi u ahaa, waxaana intaasi ay ku sii dartay dhaqdhaqaaq militari oo shaki weyn leh ayaa jira. waxa ay sheegtay in markii iyada iyo shaqaaluhu ay isqiimeeyeen xaalku ay u garwaaqsadeen inuu jiro iskuday afgambi. waxa ay ka sheekaysay jidka ay u martay madaxweynaha iyo sidii ay ku suurto gashay waraysigaasi la aaminsan yahay inuu bedelay qorshihii socday oo dhan. waxaan la xiriiray xogayaha gaarka ee madaxweynaha si waxa dhacaya aan wax uga weydiiyo, waxaana uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu goordhow shacabka u la hadli doono. cabaar ayaan sugay, laakiin ma ay dhicin inuu madaxweynuhu uu hadlo. sida aan filayena sababa dhinaca farsamada ah ayaa madaxweynaha u suurtagelin weyday inuu hadlo. sidaa waxaa tiri Hande Firad. weli sheekada haweeneydan warfidiyeenka ah ayaanu ku dhex jirnaaye waxa ay sheegtay in mar kale ay ku celisay xoghayaha madaxweynaha oo ay kula talisay in madaxweynaha uu ka hadlo barnaamijka FaceTime oo ay sidaasi hawada uu ku galo. markii warkii madaxweynuhu uu gaarayna waa uu aqbalay, iyada oo ka sheekeynaysa ogolaanshiyaha madaxweynaha kadib sidii hawsha ay u gashay. waxa ay tiri
waxaan fasax ka qaadanay xarunta dhexe ee tafaftirka telefishinka, waxayna siiyeen ogolaanshiyo ah inaan si toosa hawada u gelin karno hadalka madaxweyne Erdogan. Kaamiradii istuudiyaha ayaan ku jeediyey shaashada taleefankeyga oo uu madaxweynaha ka soo muuqday. Sameecadii ay ahayd inaan anigu aan la hadlana, waxa aan saaray sameecadda taleefankeyga gacanta oo shidan si uu codka u galo warlaliska oo uu sidaas dadka ugu gaaro codkay iyo muuqaalka madaxweynaha oo ay arkayeen. waxa ay sheegtay madaxweynaha intii aanay ishelin marka hore inay la xiriirtay laba ka mid ah gacanyarayaashiisa oo joogay hoteelka Marmaris ee uu madaxweynaha nasashada u joogay. labadaasi nin midkood oo ay magaciisa uu yahay Xasan Dogan ayaa wuxuu ahaa mas'uulka marka hore u sheegay in madaxweynaha shir jaraa'id uu qabanayo, iyada oo taasi ay ka duuleyso ayaanay telefishinka ay ka sheegtay inay heshay warar sheegaya in madaxweynaha goordha uu warbaahinta la hadli doono. laakiin warkeedii waxaa ka dambeeyay in hoteelkii madaxweynaha uu deganaa la weeraray oo ciidan uu galay, diyaaradana cirka ay ka garaacayso. mar labaad ayaa ay la hadashay Masar Xasan Dogan oo ay ka codsatay in madaxweynaha taleefanka gacanta uu ka soo muuqdo. waxa ay sheegtay in Xasan Dogan oo sida ka muuqata si fiican aan u fahmin farsamada ay soo bandhigayso inuu weydiiyey bal in ay u jeedo qadka Skype-ka ee internetka ee madaxweynaha uu ka hadlo, laakiin waxay u sheegtay in taas ay ka habboon tahay in FaceTime-ka telefishinka uu ka hadlo. arrinta xiisaha lihi waxa ay tahay in Handa Virad ay ka mid ahay dadka siyaasadda madaxweyne Erdogan dhaliilsan iyo warfidiyeenka mucaaradka lagu tilmaamo, laakiin waxa ay go'aansatay inay dhan ay iska dhigto aragtiyaha ay kaga duwan tahay madaxweyne Erdogan oo ay marka koowaad ay ka fikirto in xukunka laga joojiyo taliska militariga oo ay og tahay in xitaa aan aragtida lagu kala duwan yahay u ogolaan doonin. sidaas ay Handa Virad cadaysayna darsi ku filan ayaa ay ka qaadatay dalalka gobolka ee talisyada gacanta adig ay ku taliyaan. markana madaxweyne Erdogan qudhiisa ha inoo waramo. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wareysi u siiyay telefishinka Al Jazeera waxaa galabnimadii Arbacada 20 Juulaay 2016 uu kaga sheekeeyay sidoo warka afgambiga uu ku ogaaday isaga oo markaasi joogay hoteelka ku yaala magaalada Marmaris. warka waxaa markii hore ii soo sheegay wiilka aan sodoga u ahay, laakiin bilowgii in sidaan ay wax u jiraan ma aanan sawiran oo wax weyn uma aanan arag. wixii warkiisa kadib dhacay ayaa xaqiijiyay in sida uu u sheegay xaaladdu ay u weyneyd. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in agaasimaha sirdoonka Hakan Fidan uu kala xaajooday siday uga habboon tahay in isku dayga afgambiga looga hortago, sidoo kalena uu dadyow kala duwan oo la hadlay uu kala tashado sida ugu suurtagalsan ee uu shir jaraa'id uu ku qaban karo si uu shacabka uga codsado inay fagaarayaasha u soo baxaan oo ay ka hortagaan afgambiga la doonayo in xukunka looga tuuro. isaga oo ka waramaya sababta ku dhalisay inuu dadweynaha ugu baaqo inay isu soo baxaan, waxaa madaxweyne Erdogan uu sheegay in maadaama uu xukunka ku qabsaday doorasho 52% dadkiisa ay u codeeyeen, sida kaliya ee lagu soo celin karaa ay tahay in dadka ay raalli ay ka yihiin in xukunka laga qaado. waxaana uu ku faanay in kalsoonida ay dadku uu ka haystaa ay tahay midda keentay in codsigiisa degdeg ay u fuliyaan oo saq dhexe ay bannaanka isugu soo baxaan shacabka reer Turki si ay kaga hortagaan afgambigii la waday. madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in waaya aragnimo hore uu arrimaha afgambiga uu u soo joogay uu ka faa'iiday khibrad la xiriirta sida ugu habboon ee looga hortagi karo isku dayga afgambiyada ay tahay in shacabka la kiciyo. si kastaba ha ahaatee madaxweyne Erdogan meesha kama uusan saarin in hadaladii intii isku dayga afgambigu socday ay jeediyeen mas'uuliyiin tiro badan ay ka mid ahaayeen taliyaha taliska koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ee kaalin weyn ay ka qaateen fashalinta isku dayga afgambiga ee dalka Turkiga. 2016 ayaana isku daygaasi uu ka dhacay dalka Turkiga. markana aan eegno xasuustii Venezuela. tallaabada ay ku kaceen shacabka dalka Turkiga oo lama filaan ku noqotay sokeeye iyo shisheeyaba waxa ay dadka dhacdooyinkan akhriyaa taariikhda xasuusisay habkii ay dalka Venezuela ee dhaca waqooyi bari qaaradda Koonfur America ay uga hortageen ciidamadii afgambiga ee madaxweynihii xilligaasi Hugo Chavez. waxay ahayd sanadkii 2002 oo ay dadka reer Venezuela ay ka jireen kacdoono dadka ay kaga cabanayeen nidaam dhaqaale oo xilligaasi Chavez doonayay inuu dhaqan geliyo, laakiin tiro ka mid ah dibadbaxayaashii ayaa ciidamada ammaanka ay dileen koox ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada dalka Venezuela oo ka soo horjeeda madaxweyne Hugo Chavez ayaa istusiyay inay joogaan fursadii dahabiga ahayd ee kursiga looga qaadi lahaa madaxweyne Chavez iyagoo isku dayay inay ka faa'iideystaan xiisadda siyaasiga ah.
dastuurkii dalka ayaa ay laaleen, waxa aanay xilkii madaxweynaha u magacaabeen ganacsado lagu magacaabi jiray Petro Carmona, maadaama ganacsato waaweyn oo ay ka mid ahay dadka afgembiga dhiirigelinaya ee qayb ay ka ahaayeen. dibadbaxyo waaweyn oo kala joogsan waaye ayaa isla maalintii afgembiga bilowday. 3 maalmood gudahood waxaa qasab noqotay in kooxihii afgembiga ay u hoggaansamaan waxa ay doonayaan dadka faqiirka ah ee tirada badan. Petro Carmon waxa uu ka tagay xilkii 4 maalmood ee kaliya uu hayay, waxaana uu dib taladii ugu celiyay madaxweyne Chavez oo isaguna 4 maalmood xabsiga ku qaatay xukun. halkaas ayaana kacdoonkii iyo dadkii wadayba ay ku degeen. haddii shacabka reer Venezuela ay ku guuleysteen in madaxweynahooda ay ka soo daayaan gacanta kooxdii afgembiga oo waliba kursigoodii ay dib ugu soo celiyaan shacabka Turkiga, bara ayaa uu dheeraaday oo afgembigii qarka u saarnaa inuu guuleysto ayaa ay fashalayeen. sababna waxay u noqdeen in madaxweyne Erdogan iyo nidaamka dalkooda ay badbaadiyaan. marka arrintan laga hadlayo farqiga u dhaxeeya ummadahani waa hadba sida ay uga faa'iideysteen xadaaradooda iyo heerka waaye aragnimada aqoontooda, fahamkooda dowladnimo iyo wadaniyadda. macna ma lahan shacabku in geesi uu yahay haddii aysan lahayn aqoontii ay si buuxda ugu qiimeyn lahaayeen dhibta iyo dheefta ay ka filan karayaan hadba cidda talada gacanta ku haysa ama doonaysa in ay qabato, isla markaana aanan kalsooni buuxda ku qabin in talada isaga uu leeyahay. arrinta xiisaha badan waxay tahay shacabka dalka Turkiga ee arrintan ka hortagay waxa ay muujiyeen inay yihiin ummad nool oo leh wacyi siyaasi ah oo ku filan oo ay ku fahmi karayaan waxa dhacay. midda kale ee xiisaha leh waxa ay tahay lama abaabulin, mana ayna ahayn dad dhammaantood taageersan madaxweyne Erdogan oo xitaa xisbigiisa talada haya ma aysan jecleen. waxaasay ahaayeen dad wacyigooda ku filan yahay oo ay ku fahmi karayaan dadka imaanaya waxa ay la imaan karayaan iyo ruuxa jooga waxa ay ku haystaan. markaana aan eegno firxadkii kooxaha afgembiga. saacadihii dambe ee habeenkii waxaa caddaatay in afgembigii uu fashilan yahay, gaar ahaana intii ka dambeysay markii ciidamada ammaanka iyo booliiska dalka Turkiga ay ku guuleysteen in xoogaga iskudayga afgembiga xoog ay kaga saaraan xarunta maamulka iyo hagida diyaaradaha ee madaarka Ataturk ee magaalada Istanbul. madaxweyne Erdogan oo ka soo degay Ataturk International ee magaalada Istanbulna waxa uu ku biiray muwaadiniinta tirada badnaa ee afgembiga diidanaa, isla markaana shaaracyada taagnaa. taasi waxa ay sii shiday qiirada ay dadka u qabaan difaaca madaxweynaha iyo xukuumadda rayidka. arrintani waxa ay timid markii koox ka mid ah xoogaga iskudayga afgembiga oo gagida diyaaradaha galay xoog dadweyne lagaga soo saaray. kooxda garoonka gashayna qorshahoodu waxa uu ahaa in ay leedhka iyo adeegyada kale ee diyaaradaha soo fariisiya ay gabi ahaanba hawada ay ka saaraan. haddii sidii ay rabeen dhacdada ay u dhici lahaydna waxa ay diyaaradaha qaar ay shidaal la'aan ay noqon lahaayeen kuwa hawada ku jarma oo khatar dhanka amniga ayay keeni lahaayeen. sida uu madaxweyne Erdogan mar dambe sheegay, waxa uu la soo xiriiray saraakiisha ammaanka ee aagga madaarka joogay, waxaana uu faray in xoog ay ku galaan gegida diyaaradaha oo ay qabsadaan xarunta hagida diyaaradaha ama raadaarka iyo guud ahaan maamulka garoonka. amarkaasi ayaa ciidankii ay shaqo ahaan ay si dhaqso ah u fuliyeen iyaga oo dadweynaha kaashanaya. waxa ay maamulkii garoonka ay kala wareegeen xoogagii afgembiga. waxaa iyadana aad arrinta u sii caawisay ciidamadii gurmadka ahaa ee kooxaha afgembigu ku soo xoojinayeen tirada yar ee madaarka u jooga oo ay u suurtageli weyday in madaarka ay gaadhaan. kadib markii iska caabin daran ay kala kulmeen kumanaan dad rayid ahaa iyo tiro ciidanka booliiska ahaa iyo ciidanka ammaanka kuwa ka mid ahaa, waxa ay gebi ahaanba u suurtageli weysay in shaaracyada madaarka ay kaga gudbaan. fashalidda iskudayga afgembiga waxa uu si buuxda ay u muuqatay markii uu waaga uu baryay. dadkii oo intii hore kasii tiro badan ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha. ciidamada ammaanka iyagu weli xukuumadda u daacadda ahaana waa ayse sii abaabuleen, isla markaana ciidankii milatariga ee aan afgembiga taageersaneen ayaa si fiican uga hor yimaadeen saaxiibadooda kursiga ka tuuraya madaxweyne Erdogan. waxaa xaalku uu gaaray in kooxihii afgembiga ay guddoonsadaan inaanu qorshahooda suurtagal ahayn. sidaasi aaweed isku sii xirnaan dambe ma aanay suurtagelaynin. nin kasta ama koox kasta oo meel wada joogtayna waxay ku qasbanaayeen inay qaataan go-aankeedii masiiriga naftooda ahaa. kuwa ciidamada daacad ahaa isku dhiibay, kuwa dareyskii iyo astaamihii ciidankii tuuray oo meelo dalka ka mid ah iyo deegaanadoodii ama magaalooyinkoodii ka durugsan dhuumasho uga baxsaday, iyo kuwa dalka dibaddiisii miciin bida ayay noqdeen dadkii afgembiga qorsheynayay. maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa soo saartay amar ay safarka ay kaga mamnuucayso dhammaan dadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ka mid ah iyo sidoo kale siyaasiyiin ilaa baaritaanada ay dhammaanayaan.
tiro ka mid ah mas-uuliyiintii sarsare ee ku lahaa iskudayga afgembiga ayaa siyaabo kala duwan ay ugu suurto gashay in dalka ay kaga baxsadaan. dhinaca kalena saraakiil militari oo ka howlgalaysa arrimaha militariga ee safaaradaha dalka turkiga ku leeyihiin dunida ayaa waxay isu dhiibeen dalalkii ay joogeen ama ay baxsadka ay u noqdeen. dhinaca kalena isla fiidnimadii habeenkii labaad ee afgembiga 24 saacna ay kasoo wareegatay bilowgii iskudayga afgembiga ayaa dalka Giriiga uu shaaca ka qaaday in diyaarad nooca qumaatiga u kacday ee militariga dalka Turkiga laga leeyahay ay ku soo degatay gegid diyaaradeed oo ku taala waqooyiga dalkaasi. dhammaan dadkii saarnaa oo 8 ruux ahaana xabsiga loo taxaabay. raggan diyaaradda saarnaa ayaa Giriiga uu sheegay inay ka mid ahaayeen kooxda afgembiga, isla markii la qabtayna ay codsi magangelyo doon ah ay u gudbiyeen mas-uuliyiintii gacanta ku haysay laakiin aan laga aqbalin. mas-uuliyiinta Giriigu waxa ay sheegeen in arrintan ay sharci ahaan ka eegi doonaan 3 waji oo ah waxa uu sharciga dalka Giriiga ka qabo kooxda magangelyada dalbatay, waxa sharciga Giriiga uu ka qabo ciqaabta ay askartan ay ku mutaysan karaan shuruucda socdaalka ee dalka Giriiga oo ay jabiyeen iyagoo hawada dalkaasi fasax la'aan galay, iyo ugu dambeyntii aragtida sharciga ee dalka Giriiga uu ka qaadanayo kooxdan askarta ah maadaama ay dalkoodii ay ka sameeyeen iskuday ay ku doonayeen inay ku wiiqaan dimuqraadiyadda. maalmo kadibna waxaa warbaahinta dalka Turkiga ay cadeysay in taliyaha guud ee ciidamada Giriiga uu taleefanka uu kula soo xiriiray Erdogan isagoo u ballan qaaday in raggan dib loogu soo celin doono dalka Turkiga. markaana aan eegno xakameyntii caarada. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo u muuqda in Qatar isaga iyo maamulkiisuba ay galeen in badan oo ka mid ahna ku ilaabay sidii geesinimada lahayd ay shacabkiisa ugu hor istaageen askartii afgambiga waday iyo weliba saameyntii ay yeesheen ereyadii koobnaa Erdogan oo FaceTime uu dadkiisa u soo mariyay ayaa maalintii labaad ee fashilinta iskudayga afgambiga wax uu ka qayb galay aaska dadkii ku geeriyooday gacantii ciidamada afgambiga, kuwaas oo uu ka mid ahaa saxafi ay saaxiibo dhow ay ahaayeen muddo dheerna saaxiib ay ahaayeen madaxweyne Erdogan iyo wiilka saxafiga uu dhalay oo labadaba ciidanka ay ku dileen mid ka mid ah fagaarayaashii ay isugu soo baxeen dadkii afgambiga dhigayay. salaadii meydka lagula dukanayay masaajidka caanka ee Al-Fatih oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa uu kala hadlay madaxweyne Erdogan shacabka. erayada qiirada ku dheehneed ee munaasabadaas uu ka jeediyana waxay ahaayeen baaq kooban oo aan shacabkaygii u jeedinayay ayaa durbadiiba sababay in ay buuxiyaan fagaarayaasha dhammaan magaalooyinka dalka Turkiga ku yaala iyaga oo baqtiyay iskudaygii afgambiga. sidaas ayuu yiri Erdogan. hadalkan oo maalintan uu jeediyay gantaalkiisii ugu kulolaa waxa uu jiheeyay dalka ay Turkiga muddada dheer xulafada ay ahaayeen, balse muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirkoodii marxaladda adag uu marayay waa Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka. waxaana uu weydiistay dalab sida aynu dib ka arki doono Mareykanka culays aad u xoogan iyo xaalad diblomaasiyadeed oo laba daran mid doora ah geysiiyay. iminka waxaanu Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka si rasmi ah oo aanu qoraal aan u sii marsiinaynaa wasaaradaha yaga ay qusayso iyo garsoorka iyo arrimaha dibadda uga dalban doonaa inay gacanta ay u soo geliyaan kuwa afgambiga ka dambeeya Gulen iyo taageerayaashiisa. waanu eegi doonaa waxa ay dalalkaasi kaga jawaabaan dalabkan. sidaas ayuu yiri madaxweyne Erdogan. halka ay noo joogto qaybta afraad ee sheekada ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. qaybta shanaad waxaan ku eegi doonaa taageerada Erdogan iyo walaacii reer galbeedka ee hadallada madaxweyne Erdogan. buugani waxaa qoray oo macluumaad badan isu keenay saaxiibkay Kamaal Axmed Cali. macluumaadka mid lama intaan ku kulmi doona qaybta shanaad waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. amaana Allah.